بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. دعوة يركسوا لوالا برنامج كيني هذا نقول السوق الجري أبو قبرتين إنه سوق عضو أنا مجلس أهابر أو كده يهني يبعد أمهلي جاء وحنا ما أنت مرتبنا هاي وحفيز كود سفي عملوا بسولوي شركة قاليد عصود أنا هذا بري يقلبات ورنتي شركات كعصب ودنك isbedel weyn oo la taaban karana ku sameysay safaradii dadka u kala bixi jireen dadweynaha reer Somaliland ay u kala bixi jireen magaalooyinka iyo tuulooyinka iyadoo casriyeysay oo maaragtay sida dadweynaha maaragtay loola dhaqmo ama laga raaco gaadiidka sidoo kale iyo si ku dhow adiin maayo u sameysay oo dadkiina mahad weyn ay ku hayaan marka maanta waxaanu maaragtay ku siyaadanay xafiiskiisa maareeyaha shirkadda bari iyo galbeed haliyey cabdiraxmaan maxamed aadan iyo shaqaalihiisa oo iyaguna haliyey noqonayo oo runtii dadku aada ugu mahadiyeen hawshaa weyn ay qabteen. cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijkan. rashid waa ku dhawahay aad noogu mahadsan tahay digay gurubkaaguba aad baan ugu faraxsanahay inaad aad u mahadsan tahay aad waxaan ugu faraxsanahay inaad nagu soo boqoteen xafiiska bariga galbeed waxaan leenahay idinka laftiisa soo dhawaad waayahay si dadweynuhu u ogaado shaqadiinan shirkaddan bariga galbeedna dadka safraya dadweynaha safraya u gaar tahay oo qaada mise xamuulka iyo alaabtana way qaadaan. bariga galbeed dadka way qaadaa oo runta shaqadeeda meynka ama muhimka waa dadka saas leeg waxay qaadaa alaabta loo kala diraayo gobolada iyo magaalooyinka. Okay, waxaad nooga warantaa mudane goormaa la asaasay shirkaddan? shirkaddan waxaa la aasasay 2013 ayaa la asaasay markaa ilaa waqtigaa way soo jirtay. Okay, ma shirkad dad ku shurkeen ba mise waa shirkad private loo leeyo shakhsi gaar uu leeyahay? waa shirkad samagaada ku muuqato waa shirkad waana dad baa ku shurkay dad reer Somaliland runtii waa shirkad weerarada ay wada leeyihiin. waayo guul baan idin rajeynaynaa. magaca bari iyo galbeed maxaad u soo qabsateen haliyey ma waqooyi iyo hawd baydaan tegin oo galbeed iyo bari unbaa tagtaan muxuu magacaasi ku fadhiyaa? waa su-aal wanaagsan laga dad weyn isweydiiya marka bariga galbeed maqlaan runtii bariga galbeed waxaan u dooranay waddankeena ayaa wuxuu u dheeryahay dhinaca bariga iyo galbeedka marka iminka egtid raaca gaalada bari baa la odhanayaa laasacaanada waa bari baa la odhanayaa saas le boorama iyo galbeedkeeda iyo wajaalay xaggaasna waa galbeed bay noqonaya marka waddanka xagga u dheer laakiin koonfur iyo waqooyina waa tagay waa tagnay iyaga laftooda waa tagtaa. waayahay imisa magaalo ayaa tagtaan iminka oo bilmetal baa imisa gobol baa tagtaan iyo imisa gobol madax magaaleed iyo imisa magaalooyinka iyaguna dee labaad ama saddexaad ee la garanayo? magaalooyinkan tagnaa runtu waa fara badan yihiin. xagga gobolada marka la yidhaahdo waqtigii ay aasaasantay bariga galbeed ay aasaasantay runtii jawada weelo transportation ama socdaalka waddanku gawaadhi yaryar buu ahaan jiray dadku safarkiisu ma badnaan jirin
laakiin bariga galbeed waxa soo kordhisay oo ay keentay in dadku ay safarkii bartaan oo fududaado dabeetana waxaa dhacday in runtii gawaadhideedu iyagoo far badan haddana ay dhaafi kari waayeen intii hore oo dhan ilaa iyo bari marka la yidhahdo burco ay dhaafi kari waayeen ay u baahdeen loo baahday inaanu haddana lasaanood ama puntland amaba ceergaabo inaanu gawaadhi kale aan soo siyaadino gawaadhida faraha badan ee dambe aanu keenay laftooda dadkii batay darteed inaanu haddana isdiil gaari kari weyno meelihii kale gawaadhidii fogfoga laakiin hadda alxamdulilah maanta waanu joogno waxa maanta inooga soo baxaya dekeda 6 gaari oo waaweyn haddii laga dhigo kole telefishinada dhan baan geli doonaa haddii laga dhigo 6 gaari waxaan ugu talagalay oo keliya ceergaabo iyo runtii bariga dhinaca bariga somaliland ilaa iyo lasaanood iyo haddii aan u baahno inaan puntland lafteeda aan gaadhin aan tagno xagga galbeedka waxaan gaadhnay ilaa iyo buurama oo jaale iyo intaa ka sugaysaba sayrac iyo lawicaddo waa ku jira haddii laga dhigo waqtiga weliba fogeyn ayuu noogu jira insha allah saylac iyo lawicaddo labadaba ilaa dadka jabuuti taga jabuuti kamid inaan soo qaadno runtii sanadka waanu qorsheynay laakiin sanadka nooma suurtagelin waayahay kolley shirkadda cuseybkaas ee muddo gaaban la sameeyey iyo kororkiinu iyo maaragtay xawligaa ku socotaan waa wax maaragtay cajiib leh maskaxda ka dambeysa iyo xooga ka dambeysana waxaanu leenahay guuleysta oo sii socda imisa bilmetelba imisa qof baa ka shaqeeya shirkadda oo caadi oo maaragtay bilmetelba shaqaale rigliya rashiid waa su-aal aada u fiican runtii horta waxa ugu muhiimsan meelaha wax laga yaabo wax kamid a shaqa abuurka maadaama nahay waddan yar oo weliba aan la ictiraafin oo waa in muhiimadda inagu saaran in inagu isku kalsoonaano oo aan abuur samaysano shirkaddan waxaan runtii maanta halka caddaynayaa in ay dad ka shaqeeyaan ilaa 250 qof ay oo rigli waxa qaata adigu inta rigliga ilaa 200 bay noqonayaan ilaa kontakaa kalena waxa weeyaan waa dad commissiono iyo xafiisyo gaara leh laakiin shirkadda la shaqeeya waayahay imise qof baa maalintii qiyaastii qaadaan oo baabuurtiinu ay maaragtay geysaa safarleyda average-kaanu qaadnaa runtii ilaa 1800 2,000 oo qof ayaan maalin kasta aanu qaadnaa okay marka baabuurtii yaryareed ee la raaci jiray taksiyada yaryar ahaa ama basaska yaryar ahaa ee private-ka ahaa weli miyay shaqeynayaan mise meeshii way maaragtay dadkii way inii soo hoobteen oo xaggiinay usoo hoobteen sidaan filayo basaska yaryaraa iyo basas kalaba way shaqeeyaan oo runtii dad weli wadada keligaya maaha wax kale oo fara badan oo la raaca way jiraan laakiin waxaan rajeynayaa in aan anagu naqayn runtii shirkadda koowaad noocan ka shaqeysa shaqa abuurku waa waxyaalaha maaragtay maanta waddankeena ugu muhiimsan ee maaragtay muhiimadda weyn dowlad iyo shicib iyo maaragtay cid walaaba ay siinayso dowladdu siday inii gacan qabataayo sideed u wada shaqaysaan haddii aan la idhaahdo ma wixii aada maaragtay markaa gacaneed uga baahan tihiin ma ka heshaan runtii dowladdu wada shaqeyn wanaagsan baanu leenahay waana waan isu naqaanaa waxaan tabaynaa inaan weli halkii loo baahnaa aana la gaadhsiinin waayo shirkaddan waa shirkadaanu aaminsana inay tahay shirkadii shirkad waddanku leeyahay markaa gacan qabasho badan iyo cashuur dhaaf badan baanu rajeynay laakiin dowladda wax badan way nala qabataa runtii cidda ay khuseysay ciddi wax nala qabatay kastana aad baan ugu mahad celinaa waayahay waxyaalaha dadku inigu mahadnaqo ama maaragtay inigu raayay waxaa kamid a waxyaalo cusub oo aada kusoo kordhiseen safaradii oo bilmetelba kamid a in waktiga qofku uu rabo bilmetelba aa baxdaan hadday 3 galabnimo tahay hadday 4 galabnimo tahay tigirka lasii goosanayo oo markaa aan laysi sugaynin oon la odhanaynin hebel baa maqan iyo aynu 20 daqiiqada dib usii dhacnay ama aynu shidaal soo qaadano ama hebel baa xanuunsanayo ee
aad afarta galabnimo ama saddexda galabnimo ballantiinu sida toos u baxaysaan oo idaan meelana kusii leexleexanaynin taasi iyadu qodobada aad dadka kusoo jiidateen safarada miyay tahay maxaase kale ee bilmadalbada aada u raacisaan adeegiina casriga ah runtii taasi waan odhan karaa waa ta ugu muhiimsan isbedelka keentay waxaynu ogeen intaanay basaskan bariga galbeed aan iman istaamaa jiri jiray istaamkaas subaxii markaad tagtid gawaarida yaryara ayaa inta niman meel kaasoo qabtaan bay inta iyagu sii dhex fadhiistaan baa lagu odhanaya kan baa buuxee ful dabeetna gaas la dhex fadhiisanayay nimanku way ka degayeen marba nin qofun baa loo baahanayay qofkaasaa lasoo qabanay waxaa laga yaabay in gaariga 6 subaxnimo 6 subaxnimo aad fadhiisatid inuu 12 dhaqaaqay anigu isbedelka aan ugu weyn aan sameeyay waxa weeyaan inaan u sameeyay time sida caalamiga ahayd qofku uu dhaqaaqo يعني أما قف قاعد أما لو قف قاعد أما هبل حسمه لقد اللي قالت تضبط دقائق إنه تضبط دقائق تازرتي ويسبدل كوين أنا راكرو مغضاء اللي سميه وحيوات كلا روتي يسبدل كلا اللي سميه وحكم ده عريري فيه هراء وبس كورا عريري بدن بي كوا يعني كوارد هراء لقى كرسي هالقف لو ترى كلا إن لو قف يكبدن لصاره أنا وحوين كرسي كستابه هالقف يوليه هاي ولو كراسي بالبلارن وين مرجع تنفس كنا ونركرا وواحد صابريني. أوكي. يلا واحد بيئة أما ما رك في مئة سيسان مثل بلا ضدك ما رك أما ضدك الضواخة صعد كأما هدي بما ضدك عبادة إن يقول لها نوتشو تي بيانو باهنا يا مثلا يسلم. runtii qorshaha biyaha iyo service kale oo gaari dhexsan ku siinaa waxyaabada noo soo socda ilaa ka dhigo basaska yaryar oo kale waa laga yaabaa qofka markuu 10 qof iyo waxa laakiin gaarida 60 qof 50 qof wax ka badan bay qaataa laakiin waa qorshaha noo soo socda insha Allah inaan u tijino inaan service kaasina laakiin taa waxa dhinac socda in qofku meel kasta oo u baahdo oo yiraahdo yani waxa jirta waaweyn dad macaan qaba dad cunto baahan mar kastaba in aan meel kasta oo qofkaas u baahdo yani loo joojiyo waxyaabadkan runtii aan soo kordhinay waan ka mid tahay in aan tababaray niman darawaliina oo carabisan service-ka dadka ama in dadka loo khidmeeyo oo carabisan oo runtii dadka soo dhaweynaya dadka dhageysanaya waxyaabadkan soo kordhinay ka mid tahay qodobka taabatay waa ugu muhiimsan marka xirfadlayaashii maaragtay iyo maaragtay dadkii shaqeynayay dhibaato weyn maaragtay hadii biin maayo lagu qabay marka darawaliintana dhaqankeena xagga akhlaaqdooda badankooda iyo asluubtooda iyo baabuur wadista laga yar wanaagsan marka qodobkaasi qodobkii aan waxa isleeyahay ka kacayseen ama ka jabayseen weeye maxaa gashateen ama tababar ama maaragtay niyad wanaajina ama maaragtay xagga hadii biin maayo darawaliintiina makaanigiintiina oo maaragtay aad noo sheegi kartaa waxyaabadkan gashanay runtii waan odhan karnaa waa dhowr nooc horta number 1 tababar waan gashanay oo qofkii iskuul baa loo furaa waanu tababaraa waxaan u sheegnaa waxa wanaagsan ee laga rabo waxyaabadka dhibaatada leh laga tahay inuu iska ilaaliyo qofkii tababar noocaas waanu siinaa waxa kale oo isaga lafteeda runtii la gashadaa inaan qofka dhiirigelin sameeyo oo tusaale ahaan aan idhaahno qofka dadka saa ugu wanaagsanaada waxaasuu leeyahay qofka gaariga saa abaalmarin la siiyo oo qofka gaariga ilaaliya customerka ilaaliya dareyskiisa iyo nidaamkiisa ilaaliya abaalmarinta noocaas taas waa runtii wax badan ka bedeshay dadka waayahay iyaga xagga farsamo yaqaanada baabuurtan jaadka keenta waxa quraartii ku fiican yihiin isla markiiba marka jaadka la keenay laga rogo waxa loo diraa geerish baa loo diraayo jeegaraya xagga wixii markaa kasoo xumaaday inuu caadi yahay sidaas oo kale idinku makaanigi baa leeyihiin waxaan arkaa rag badan oo dariiska xiran makaanimada ka shaqeynaya sidaas oo kale miyaad samaysaan idinkuna markuu baabuurka safar ka yimaado inaad jeegaraysaan oo safarka berrito loo diyaargareeyo
ها رشيد واسمعنا وما بريتو كليا أنا واحد ولا روتي جيرش فول جيرش هو مكانين ولو مصح ولا يشوفان قالوا مر صوت قالوا مرة قالوا على جال إسلام مرة لفت إنه سفر كلا سيجرايو مر صوت قالوا هرجسي ما دبا يعني قالوا ولا تشجرين يا ولا نظيفين يا وبديه سي دبدي ولا نظيفين يا بعد هذه واحد وين كعني هنا قاعد ولا قاعد كلا لو مدري هذه يعني تحدد حق لا سميسان تحدد حق لا سميسان ويا حق قيمها بليجا كورن قيمه واحد الصعبة من كلقن كنا الله صوب احنا قف ولا روح هيبو ما نقول ببدلع يا موسر وقاضي يا مدرو فكروا أو كصح يعني هيجران مركب قيمها بتكورن وإحنا وش قيمها بتكاب قادام قيمها طريق البلد ثاني من runtii burciyaha hargeysa kale tusaalada soo qaadano $12 baa laga qaadi jiray qofkii laga yaabo kursigiisa in la wadaagayo oo gaariga kursiga hore loogu talagalay laba qof la saari jiray halfka oo fadhiya waa $12 laga qaadi jiray halka aad tiri waxba la dalacaa anigu waxba ma dalacin waan dejinay oo hoos baan u sii wadnay anagoo runtii jeebka dadka iyagayna iyo iyada lafteedina wuxuu fududeeyay umada soo dhaweyn aan sameeyno marka qiimaha hadda kulli waa $3 $4 iyo $5 meelaha ugu qaalisan marka bilburco kale bilmetr burco kale inta waa ilaa 5 mar 4 ku qaad mar 3 ku qaadin way jireen laakiin hadii uu kale 4 weeyaan waa 5 weeyaan hadii tan ku qaadin ilaa burco iyaga hadii biin maayo ka waran dadkii baabuurta ka haysan jiray ee shidaal badan isticmaali jiray hadii biin maayo ama barbara tagi jiray ama burca tagi jiray ama boorama tagi jiray waxaan maqlay hadii biin maayo ama aan arkay in maaragtay basaskiina lagu soo hirto oo hadii biin baabuurtii la iska dhigayo oo qofkii oo hadii biin maayo halku intaasoo shidaal ah iyo intaasoo maaragtay wax ka haysan lahaa baabuurkiisa ama baabuur kale uu ka haysan lahaa in inkii isku hadleen fiican dadkii niga dareemayo markaa bilmetal baba layni raaco maadaama aad service aad u fiican oo bixisaa taas waa waxyaabaad ka kordhiyay ayaan oran karnaa runtii dadkan ama safarka kordhiyay waayo qofku markuu berga hore gaariga istoon ku safro wax badan ka fikirayay gaariga ka xumaanaya shidaalka kharashka u baxayo waxyaabo badan kacaynta lafteeda wax badan ka fikirayay laakiin maanta dadkii gawaadhida ku safri jiray oo dhan way dhigaan dadna way tagaan saacado sii soconaya xagaas tagay dantiisu ka sababsanay dib u soo raacay isagoo $5 ama ka yar ka baxdo kaliya ayuu runtii u imanaya gaarigiisa halkiisa ka wadanaya marka taas runtii way jirtaa aadna waa loo badanaya ardayda waayahay hadi Cabdiraxmaan wax kasta oo la sameeynaya carqalado iyo dhibaatooyin baa laga kulmaa mid iyo laba ma nooga sheegi hawshan inta bilowdeen carqaladihii waaweynaaye aad la kulanteen ee ka gudubteen runtii caraaqil badan baa lala kulmay ama carqalado badan baa lala kulmay carqalada lala kulmay waxa kamid ah dadku aan aqoonin serviceka noocan oo aan islayn iyo suuq oo marka hore dad haysteen iyada lafteeda dadkii suuqa haystay dagaal culus bay galeen si aan cid cusub u soo gelin oo wax ka bedesha waayo waxa la dareemay hadii wax cusub yimaadaan in wax isbedelayaan carqalada ugu weyn waxay ahayd marka dadkii suuqa hore ugu jiray in wax kasta oo la sameyn karay ay sameeyeen carqalada ku xigta waxay ahayd inaan dadku aqoonin servicekan ودنا مرة كذا ركض بس كان وين سعونية هالكن لا يروح سعونية ما يلا بورو ما يلا ملك الشيء سعونية إنه لو وقفوا كل يوم سعودة وإنتوا هذا كنا قاقوا أنا بشتري كيسة ويحكي كوبا يوعوا بادروا كي وعوا بانوا ومجيب كذا بعدين إلى يلا دعاية للجميع دعاية من مجال أيوة برع مجال أيوة ويقابيان وحياة دعاية فربنا معروفة مرة رنتي وحياة كلا على قش على فتاة وحكم إذا markii la bartay la arkay fikirkeeda inuu shaqeynayo in dadyo kale oo fara badan ay naga daba sameysmeen oo dadna ay qiimihii iyo servicekii iyo wax walba laga yaabo in si ay u walaaqeen marka caraaqisha alxamdulillah maanta aad baa loogu soo alxamdulillah hal ya Cabdiraxmaan barnaamijkan oo dhan waa bara oo ku dayo waxa weeye in la inaga daydo shaqada qabateen weeye oo maaragtay shaqaabul yimaado fikrado ay furfurmaan waxaan arkay intaas oo shirkadood markay ugu yar tahay 5 ama 6 shirkadood inay inaga daba abuurmeen
oo laynaga daba qaatay oo iminka haddii biin maayo runtii iyaduna halkaa shaqo badani kasoo baxday, shaqo abuur badan, maaragtay dadkiina iminka uu batay oo sida aada sheegtay haddii biin maayo weli baahidu ay jirto. marka ku-dayashadaa fiican haddii biin maayo wanaag baan inaga rajeyneynaa haddii aan la yidhaahdo. maxaad hiigsanaysaan future-kan dhow ama mustaqbalka dheer? runtii tan ku-dayashada horta waanu soo dhaweynaa cid kasta oo wadanka waxu qabanaysa. waxa keliya aanu leenahay serviceka ma aha in aynu guri keliya wax ku gallo, laakiin ummadda loo adeego oo si hufan loogu adeego, oo ciddii nagu dayanaysa inaanu si hufan aan u shaqeyno, si hufanaanteedaas ay u shaqeyso ayaanu horta aanu rajeynaa. taas ka odhanaya. tan kale higsigayagu ilaa maalintaan bilownay ama intaan xitaa la bilaabin, higsigayagu wuxuu ahaa halkan aan marayno imika marxalad waa meel kamid a meelahaan marayno. laakiin runtii waxaan higsannahay inaan noqono transportka ama socdaalka keliya ama ugu sarreeya ee waddanka oo dhan. waxaan higsannahay inaan noqono socdaal ilaa East Africa oo dhan gaara. waxyaabaad kan higsanna waxaa kamid ah in maanta basas baan ku bilownay, laakiin inaan wax kastoo socdaa leeyahay aanu gaadhno. hadday ay noqoto maraakiib, hadday noqoto diyaarado, hadday noqoto gaadiidkii dhulka oo kala duwanba. marka higsigayagu waa yahay wanaag badan baan maaragtay inii rajeyneynaa. gaar ahaan aniga waxay taabta runtii moogtay oo maaragtay runtii aan rajeynayo inaad si dhaqsana u gaadhaan oo ilaahayna inagu kaalmeeyo in xajka marka la tagayo xajkii bilmetelbaba $5,000 wax ku dhow cagcageynayo oo dadkii dayarka ahaa aysan maaragtay runtii aysan gaari karaynin. marka runtii adduunka kalena waxaa jira maraakiib yaryar oo maaragtay la raaco bilmetelba. innaga jiddo oo kale mar aan 77kii aan raacay 20 saacadood 22 saacadood baan maaragtay usii soconay. marka dee waxaan rajeynayaa inaad taana aada soo qadimataan oo runtii dadkana halkaa naxariis badan iyo wanaag badani maaragtay runtii ay niiga yimaadaan. sidoo kale iyadana maalgashi badan inkastay u baahan tahay tareenadii haddii biin maayo berbera ilaa maaragtay dee East Africa oo dhan ama wadamada maaragtay la geenayay oo shidaalkii uu la ogaaday dee hawada sida u kharaabinayo iyo maaragtay kharashkii wadooyinkuna ay badan yihiin. marka iyadana guul baanu iga rajeyneynaa. inagoo barnaamijkii gabagabadiisii ku jirna maxaad faraysaa aad halkan uga soo jeedinaysaa macaamiishaada? maxaad u soo jeedinaysaa dowladda? maxaad usoo jeedinaysaa dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya aad leedahay maaragtay waddankeena jooga? rashid aad baad mahadsan tahay. waxaan usoo jeedinaya ugu horreyn horta dowladda waxaan usoo jeedinayaa in ay bariga galbeed tahay shirkad wadaniya, inay bariga galbeed tahay shirkadii qaranka runtii. anigu aada waxaan u dadaalaa oo aan ugu dadaalaa in wax kasta oo dowladda loo fudaydin karo inaan u fudayno. waxyaabaad fara badan oo imika dee socda sida ciyaaraha oo kale, sida diiwaangelintii oo kale, sida doorashooyinkan imika soo socda laftooda oo kale. waxyaabaad fara badan oo runtii dowladdu ku mashquulshan tahay. qaanuna qaybalkan oo waa maqaan dadka waan isu guraa. waxyaabaadkaasaanu sameyn oo dhan waxaanu rajeynaa in dowladdu noola ogaato, ay noo dareentan inaan nahay shirkadoodii. taas dowladda aan leeyahay wax badan baan runtii uga baahanay dowladda, oo aan jecelahay inay naga ogaato nalala socotana. taan dadka macaamiisha ama macaamilkeega aan u gudbinaya wax weeyaan shirkadda bariga galbeed aad bay ugu mahadnaqaysaa macaamilkeeda. runtii aad baa naloo aqbalay, aad baa naloo raacaa. intaa dadku ay jeclaadeen in ka badan anaguna waan jeclay dadkayaga. waanan jecelahay in ay runtii ay gaadho fariintaasi. waxaana leeyahay shirkaddu waa shirkadiini mar walba ku xidhnaada. ta aqoonyahanka iyo dadka kale iyo hay-adaha iyo dhammaan aan u gudbinayo dadka waxgaradka oo dhan waxa weeye war waddankeenu wuxuu u baahan yahay shaqo abuur, wuxuu u baahan yahay wax ka qabasho. wax badan baa bannaan, meelo badan baa runtii bannaan. hala kala leexdo, waxna hala qabto, ha lagu fikiro fikir wanaagsan had iyo goor hala keeno.
kelmadda bixisay haldoorka runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waxa weeyaan wax badan oo la iskaga dayan karo ayaa jira وين مسكحة أنت مسكح بدون بتشتري مسكحة وين دبتك كنا توجنا دبتك كنا وضع توجنا وهي هاي ما هي وحيالها بالمثل باب السفر كذلك السفر كعادي بواحد كمدا إن بابورت الراعي شري ما عرفتي لو قلنا حقيرو إن سجار كيلو عبايو إن هدي بالما هي مخادرات بالمثل بلغيا بين قاران وما عرفتي كنتي ما عرفتي وضع فهمي كرتها waxyaalo badan oo maaragtay ka mamnuuca dalkeena ama maaragtay safarka oo kale ama ninka darawalka oo maaragtay bilmetal baba hayso ama maaragtay dee wuxuu dhageysanayay cirkaa geeyo oo aad isku qabsataan waan hoos nooga dhiga ama naga yar jooji aanu leedha yar qaadane marka iyada taa maxaa haddii biimaayo aad kaga wajahantihiin waxaan kaga wajahanahay runtii shirkadda maamul bay leedahay aniga maanta ka hor fadhiya maarayadeeda guuda shirkaddu waxay ku socotaa waxaan maskaxdayada anigu aan maskaxda ka keeno kuma socoto wax darawalka ka keeno waxbaadkan runtii aan ku amaanana dadku nagu amaanaana waa ka mid imika arki maysid gaadhaan uleedo sigaar lagu dhex cabaayo arki maysid gaadhaan uleedo darawalkiisa iyo ninka la socday shaqaalooda ay qaylayaan arki maysid gaadhaan uleenahay oo saad sheegaysid heeso iyo waxyaabaad ay dadku aan laga yaabo inaad jeclaysan ay dadka ay kor ugu qaadaan waxa weeyaan waxa dadku doonayaa way shirkaddu doonaysaa dadku had iyo goor waxay jecel yihiin qaabkay doonayaan dadku inay darawalku u dhaqmo ay shirkaddu u dhaqato ayaan runtii u dhaqanaa waayahay haddii biimaayo waxaan kusoo gabagabeynayaa iyaga da-yarteenna maanta intaasoo kun oo maaragtay ardayba jaamacadaheenii gudaha iyo dibaddaba kasoo maaragtay kasoo qalinjabinaysa oo kasoo baxaya badankooduna shaqo farsamo haddii biimaayo ma bartaan oo bilmetalbaba sidii noo kale aada makaanigiin loo baahan yahay darawallo waayo araga loo baahan yahay dadkii ma garanaysa caafimaadka ee maaragtay basaskiina waaweyn raaci lahaayee maarata kaaliyaal caafimaad ahaa maxaad markaa kula talinaysaa da-da wadankana da-yarun baa dhista markaa adigoo guud ahaan u hadlaaya ganacsatada wadanka maxaad kula talinaysaa da-yarteeni maanta badankeena way dhiban yihiin oo way lunsan yihiin qaar badan oo kamid maxaad markaa hadyey maaray kusoo kula talinaysaa runtii taa dhalinyarada waxaan odhanayaa oo aan leeyahay dhalinyaradu waxa weeyaan ummad walba dee dhalinyartooda waa ummadda waa dadka waddanka usoo koraya usoo dhisaaya marka in loo naxariisto oo la hago waa laga maarmaan sida aan kolley aan wada garanana haddii magacaad bixisay ee ah haldoorka ku dayo heliyaga ninka dhalinyarada waxaa heliyihiisa ku dayanaya marka uu dareemo inuu isaga u danaynayo waxaan leeyahay yan ninka ka horeeya ama ganacsada ama siyaasiga ama aqoon-yahanka yan u danaysta noqonaya ha noqdo nin u daneeya ummadiisa iyo dhalinyaradiisa taasa waxay keenaysaa runtii inay dhalinyarada laftooda ku daydaan ay toosnaadaan anigu runtii waxaan sameynay oo aan hadda aan anigu si shaksiya u sameeyey dhalinyar magac leh oo urur leh oo xafiis leh oo runtii xafiiskooda aan ka qayb qaato dhismihiisa oo anagana nala shaqeeya ummadda kalena u shaqeeya markaa runtii waxaan odhan lahaa cid kasta oo danaynaysa waddankan waa inay qayb weyn gelisaa waktigeeda iyo maalkeeda iyo aqoonteeda waa dhalinyarada waa in la geliya waayahay su-aasha igu dambeysaa waxa weeye soomaalida kula waxay tilaa awrka hore awrka dambe tallaabadiisuu leeyahay cabdiraxmaan haddii biimaayo haligay shaksi ahaan haddaan su-aalka weydiiyo ninka inta badan soo shaqeeye maaragtay madaxda aad tahay maxaa haddii biimaayo dhalinyaradayna dhegeysanaysaa ama rabta inay tahriibaan ama haddii biimaayo ay naftooda halgegaan ama mukhaadaraad maaragtay ku leexdaan maxay odhan karayaan cabdiraxmaanba dadaalkaasuu la yimid oo 9 biloodba ku dhashay maxaad miiska soo dhigtay ama raganimo ah adigoo ayna faan ka ahayn lagaaga dayan karaya dadaal aqoon waayo aragnimo maxaad haddii biimaayo markaad adigu keligaa isla sheekaysanayso aad tirahaa alleele guushu
halkaasay ku xidhan tahay oo aan maaragtay ka gaadhay. runtii horta guusha qofku mar walba intuu naftiisa u sheegaa guusha gaadhaya hadduu is yidhahdo cirka gaadh oo uu go-aankaa qaato si u gaadho wuu gaadhaya maanta dan saalkan ka tago meel tag meesha waan tegaya saan doona waan u gaadhay horta runtii guushu waxa weeyaan waa qanaacada qofku ilaahay siiyey iyo siduu dadaalku u sameeyo. anigu nin qurba jooga baan ahaa, dhul badan baan soo maray, meelo badan baan kasoo shaqeeyey, maraykan baan kasoo shaqeeyey, Canada ka shaqeeyey, runtii inta badan service baan qabanayay, ingiriiska adeeg baan qabanayay, ingiriiska iyo meelo kaloo fara badan oo adduunka kamid ah, Dubai oo kale meelo badan baan runtii aan kasoo shaqeeyey. waxyaabaadkan ka shaqeeyeen wax badan successful ama wayna jecel oo waxyaabaadkan ka shaqeeyay dahabshiil oo kale ayaa ahaa oo runtii aasaasayay ugu horeeyay ama dadka ugu horeeyay shaqaalaha u ahaan jiray. marka maxaa ka dambeeyay guulaha iyo maaragtay maxaa ku riixaya waxyaabaadka riixaya waxa kamid ah ilaa markaan anigu dhalinyarada ahaa, maanta dhalinyarada ka shaqeynaya dhalinyarteeda ahaa, waxyaabaadka aan aaminsanaan jiray waxa weeyaan ilaahay waqti yar buu ku siiyey inaad adduunka joogtid, adduunka inta joogto wayna wax keentaa maaha in adigu wax lagu taro, laakiin adduunka wayna wax cusub ama wayna wax kusoo biirisa, wayna adduunkan dadku wayna wax kaa faa'iidaan oo ummadda aad wax keentaa. runtii tiina wax badan alxamdulilah ilaahay waa nooga fududeeyey oo dadka haddii maanta shaqo abuur la sameeyo, haddii shirkada la sameeyo, haddii siyaasaddeena lafteedii dhinac laga qayb qaato oo la kiciyo, haddii amnigii iyo nabadgelyada in laga shaqeeyo, waan isleeyahay waxyaabaadkeenu u soconay waayahay. aada iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa. taa imika maaragtay aad ka dhawaajisay tiri qof kastaaba fikrad iyo maaragtay caqligiisa ha ka faa'iidaysto. haddaan soo qaadno bilmatlbaba aakhirkii lixdamaadkii markii maraykanku tegay dayaxa dee 2 nin baa laga yaabaa ama 3-4 qof intay meel fadhiisteen cirka sidaa u eegeen dayaxa inadeen alleena halkaa ma tegi karnaa isla soo hadal qaadeen xaalad kastaba markaa ku jiraan markaana dee ra'yigii dee la gacan qabtay oo dee ay ka dhaweeyeen oo intaas oo malaayiin oo qofi ay shaqo ka heshay mid dee waynu fahmi karnaa dee dayax gamceedada cidda ka shaqeysa iyo sida hawluhu ay yihiin iyo shaqada ka shaqeeya. marka inaynu fikradeena iyo maskaxdeena tuujino gaar ahaan dhalinyarada aad baanu maaragtay kaaga mahadnaqaynaa iyo waraysigan aadna siisay iyo martiqaadka xafiiska nagu soo dhaweysay. sidaa la adligeed baa waxaanu ku siinaynaa shahaado barnaamijkan uu bixiyo oo maaragtay shahaado yar oo maaragtay halyeynimadiina ka sheekeynaysa oo maaragtay tibaaxaysa. taana waxaanu rabnaa inaad naga guddoonta haddii aan la yidhaahdo.